maalin wanaagsan habeen wanaagsan dhageystayaasheena meel kasta aad joogtaan halkan waa xaafadda Islii aad aragtaan manaan qof isku soo baxay dadkan way dabaaldegayaan waxay u dabaaldegayaan guushii farbaajada u gaaray maanta waa kuwa qaar ka mid ah gaariga saariin u dabaaldegayaan gudbaanay tumanayaan marka dadka siyaabo kala duwan ay u dabaaldegayaan oo damaashaad kala duwan ay sameynayaan qaarkood farxad badan ayaa ka muuqato sida muuqato dadkan cid soo abaabushay ma jirto iskood ay isu soo abaabuleen kuwa ka mid ah oo hadda halkan ka soo socdo calanka Soomaaliya ay wataan oo ay ku dabaaldegayaan oo ay sitaan bal mid ka mid ah aan la hadlo kaalwada waa BBC adooraan ah magacaaga maalin weyn farxadda waxaa loo dambeysay waayisiyaad bare Soomaaliya haweenna ha noolaato Soomaaliya ha kuluto Soomaaliya ha milulo Soomaaliya xorriyad hesho meel adduunka aniga magacay waa Maxamed Maxamuud Axmed waxaan ku baaqayaa Soomaali meel kasta joogta inay isku duubnaato ay isku raacdo isku toosanaato farmaajina waxaa u rajeynaa insha Allah Soomaaliya oo dhan isku keen doonto insha Allah waata aad ay umaasay waxay u muuqataa dabaaldegayno xaafadoo dhan oo ka siman yahay dumar ayaa ku jira qaar ka mid ah markay xaafadoo dhan asaa u dabaaldegayso waa Islii oo dhan dabaaldega bal dadkii adinka idin kala dhaxdo hadda waxaa soo socda gaari dad qaar halkaa ka soo muuqdo calankii Soomaaliya wataan qaarkood gawaari ayay saas ugu dabaaldegayaan ku wareegayaan qaarkood mootooyin ayay sitaan dumarka gurbaane ayay sitaan caagado ayay garaacayaan waa kuwa ولي dabaaldeggan xaafadda Islii ka socdo kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ka hor intaan natiijada lagu dhawaaqin ayay bilaaween dadka inay isu soo baxaan markii natiijada lagu dhawaaqayna tiradii dadkii soo baxay ayaa korortay wadooyinka xaafadda Islii laga bilaabo wadada koowaad ilaa wadada labaad xaafadoo dhan dabaaldegyo ayaa ka socdo marka dumar rag iyo dad kala duwan ayaa isu soo baxay oo raba inay dabaaldegaan hadda hooyadan halkan taagan xataa wayna weydiinaysaa xaggee ka socotaan magacaaga waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha waddanka qabsaday waxaan ku faraxsanahay 26 sano waddanka aan joogno qurbaha waddanka anaga u xiisnay madaxweynaha waa rabnaa وهسه قرك على الصومالي دغيسياش dadkaas ay qaadayaan waa dabaaldegan wali waxay u muuqataa in xaafadan mar waxa la xasuusaa xilligii doorashadii 2012 sidaan oo kale dad isku soo baxeen oo u dabaaldegeen markii natiijada lagu dhawaaqay waxay u muuqatay marka dadka inay mar kale isbedel kale ay doonayeen oo in qof cusub ama wajiga cusub oo meesha uu ka soo baxo dhageyso sawirkii farmaajo wata ayaa halkan taagan ay maxaa wadataa sawirkii farmaajo waa dalka iyo dadka iyo waxa socodil buu anfacaya waa nin lagu kalsoon yahay waa nin aan saad u jecelnahay adiga ku sheego soo bax u dhahay inaad dabaaldegto ku sheego adiga yaa ku sheegay inaad dabaaldegto soo baxda xaafadda waxa uu soo baxay waxa ogaaday ninkii dalka u dhashay inuu soo galay haye dadka soo saartaba ka soo gooday dalka tan si fiican u soo xiray waa maasita aad iyo aad ayaa u maasantahay wadada dhinaca ayaa ugu daran meelaha dabaaldega uu ka socdo iyo wadada dheer ee highway-ga ee xaafadda isku xirto labada wada ee xaafadda isku xir ayaa ugu badan gawaarida dhaqdhaqaaq ma jiro oo waxa jiro isku socodkii gawaarida xayiraad xun ayay galeen kadib markii dadka isu soo baxeen qaar ka mid ah xarumihii ganacsiga waaweynaa badankoodii ee haweenkii shaqayn jirayna waa la xiray bal daawada dadka soo dabaaldegayaan
باورتي سودك سعدك أيار سلا درت العدورة إن وكذا فتان هم بدن أي يرنا مرسل وتفرنسا بدأ الصومالي هنا هم كان تاجر كفا والماجو